وهذا سما تي في oo maanta idin soo diyaarisay barnaamijkii fanka iyo suugaanta barnaamijka fanka iyo suugaanta maanta waxa marti noogu ah labada abwaan ee North America gaar ahaan gobolka Minnesota magaalada Minneapolis waa abwaan Cabduqaadir Saciid Argos oo isagu maanta heesa qaaciya ka qaadan doona studio Sama TV ee magaalada Minneapolis oo haatan ku sugan yahay inana fadhiyo isla studio waxa kale isna ila fadhiya abwaanka daad yar ee abwaan Ahmed Saciid oo isaguna ku magac dheer Burhaan waxaan filayaa isna heesa wadani uu sameeyay inuu studio Sama TV u soo gudbiyay waana abwaankii gobolka waxaan jeclaan lahaa marka dadka fanka xiiseeya bal maanta inay barnaamijkan igu raaxaystaan ku soo dhawaada Sama TV idinku mahadsantahay abwaan Ahmed Saciid adigu waxaad samaysay heesa wadaniga heesaha wadaniga bal ka waran goorma ayaad samaysay maxaad soo u tala gashay heesaha wadaniga heesa badan wadaniga ayaan sameeyay haddana waxaan ii soo gudbiyay heestii ugu dambeysay wadaniga waan sameeyay aan ugu tala galay xafladda lagu qabtay conference center Minneapolis oo lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaaraha cusub Cabdiwali waa dardaaran oo la dardaarmay maamulka mas'uulka la doorto waxaan doonayaa qaran sharciga dastuur loo way marka waxaan ka hadlayaa waxaad abwaanku alaba wuxuu ka hadlaa shacabku wuxuu doonayo marka waxaan leeyahay waxaan doonaynaa nabad iyo dib u heshiisiin dalka oo dhan laga dhigo waxaan diidanahay ruux kaligii danaysta darajeexanayo dollar qaata laba rabo baan leeyahay abwaan inta aadan ku burqan maanta Sama TV waxaan jeclaan lahaa bal dadweyne fara badan ayaa waxay sugayaan fanka iyo suugaanta abwaanka Argos aan u gudbo hees qaaciya bal marka hore hanoogu tuuro inta aan barnaamijka furfurno soo dhawaad abwaan Argos timaha gaguudkiyo duquntiyo garaaraha labta iyo gaadada jamcaha iyo dhinacyada jirka gebi ahaantii lagu moodgadeede sida godon barwaqa gabaryahay waxaad tahay gaariga haweenkii ama gees dacawsani iyo galac kale waa soo gudubtee gurfeeyo talade adiguna hagesmarin waynu gaari guushee sida galab cadceedeed fadka lagu gambiyey langebi ku taalay wagelin isaragwe jecel bay gaare angurfeeyo talade adiguna hagesmarin waynu gaari guushee
ada goray iga soolkiyo gudbay socod gamaankaba markaad goobta joogtana aan cidiiba gaadhay bilicdaada gaarka gorfeeyo talaadee adiguna hagees marin cidda kuu go'ayse adiguna hagees marin waynu gaari waxaan filayaa heesta qaaciga daawadayaal saadaal barwaaqo saxan saxiir onkod iyo hilaa orod iyo meeka guuxa iyo sawaxanka aad maqlaysaan waa Sama TV oo maanta idiin soo gudbinaysa barnaamijkii fanka iyo suugaanta haddaba moogaanina barnaamijyada ka baxa Sama TV waxaan rabaa bal abwaanka heestan macaan ee qaaciga oo annagu de waa horba ayaa noogu dambeysay heesahan qaaciga marka abwaanku wuxuu la qarsoonaaba heesa qaaciga marka waxa dareemi kara dadkii hore ayaan u maleynayaa bal abwaan heestan magaceeda maxaa la dhahaa heestan waxaa sida godan barwaaqa heestan waxay ka hadlaysay sida ii muuqata abwaan jacaylka ay ku saabsan tahay adigu halka mari adigu dad badan oo wax jecel waxay dareemayaan marka ay heestan dhageystaan qaaciga inayba aniga kula qaadi gaariba marka abwaan burhaan isagana oo dhinacayga fadhiya abwaan ka waran bal heesii qaaciga adigu dhinaca qaaciga ka waran ma isku fiicantiin qaaciga waa wax fanka laga soo gaaray heestan kama ugu qabanna marka muusiga lagu qabto basically dhaqanka ama muusiga ama artiska Soomaaliyeed wuxuu ka soo bilaabmay cuudka waa gartay marka cuudka lagu tumayo heesto laxanka lagu qabto baa muusig loo bedelaa waa gartay marka basically waa classic song marka kabankan la tumayo iyo marka lagu tumayo qalabkan casriga ah aniga wuxuu ila macaan yahay hadeer kanu ila macaan yahay marka maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin wax walbaba asaas bay leeyihiin moogta haye kabanku waa asaaska heesta ama suugaanta marka way ka macaan tahay heesta kaleeto goos marihii muusigu kala sarmarayo mirahan waa fahmaysaa laakiin abwaan marka heesta kale oo lagu sameeyo qalabka casriga ah ciyaar badan baa jirta dadku ruxmay laakiin kan waa in la fadhiyo Soomaa madadka laftigiisu waxa weeye qofka asagoo fadhiyo garaacaya subcis baa jira haye taynugu meena subcina maanta waxa ma subcina maxaa dhacay subcis baa jira marka mid walba wadan hees walba waxay wadataa ciyaarteeda iyo waxay ku xiran tahay naaxiyada iyo muusiga habka suuq dhaxay ku xiran tahay Argos adiga heesahan maahe wax kale aad sameysay jira haday noqon lahayd dhinaca gabayada haday noqon lahayd dhinaca kulaba abwaanku dhaqanka Soomaalida waxaan u maleynayaa dhaqanku uu la socdaa maxaa kale oo ku dheer heesahan qaaciga marka laga tago والله إني هو أنتي ذلك سيد أو بربرية دبت سو هذه أما أفريقيا جوجا أما أمريكا جوجا وحبان قري هيا وحلا وحي مركز درين كيجو دريمي بان قري هبا ودراتي دبتوي كسومالي هيستا أوكي قحيبا وحكا قري حلكو سيدو نقونا يبان وحكا قري أركتي كلا دواني ومادة أيام وحكا قري وأنا جود هان بان وحكا قري هيسو إلى كنتمي دان يمانسو إلى أفرتمي دان أيان سبي واقرت إن أبوان مركا بل waxaan rabaa dadka maanta inaan u badiyo dhinaca qaaciga heesa badan oo qaaciga inaan noo sii deyso ayaan rabaa okay diyaar baan waxaa yeelay dadku hadal badan haan ma buuxshaayeen barnaamijku waa barnaamijkii fanka iyo suugaanta bal mar labaad ma noogu celin kartaa hees qaaciga heestan waxaa la yiraahdaa xubbiyo xamaysani ruuxa xulan waxuu rabo xilbayga ma saree bal maxaa yeelay dadku waxaan daaqo hore loo xaqiijay
xooluuna xabkay ku xaraarad gooya xinfinin basaydkii xididkiini loo gara markuu xarigga kaga dhegay ka xishooya diidmada cashaqaan xawaarayn haatan waan ku xiiqay haddiyaan xanaaqo xariggiisa gooyana wuxuroobi karaya xubbiyaho xamaysani aan kula xifaaltamo xubbiyaho xanaaqsani aan kula xisaabtamo adigoon xishoodkiyo xayadiiba siidayn umurahan iswada xidhay adiguba balxaale rugta xiraada akhiro halka lagu xisaabtamo xaqsuraha ilaahay xukunkii la sugayana sida diga xorayba nafta ku xalkamiya soxigu warkaygo haddaan xaasidka ahay xadkan dhaafilayo marna kuguma xiiqeen marna kuguma xiiqeen maran xaladu leylkee ku xasuustay inay yahay maran xaladu leylkee ku xasuustay inay yahay xaday istaagto xadayooday dhowrjee xubbigaagu naariyo igu noqoy xanuun ba'an ma og tahay xasuusta gela lagu xergiya ma og tahay xasuusta gela lagu xergiya hablahana xishoodba lagu xilaa amaana inkastuu xilqaad ragi xujo badan balaasimo marunbuu xasuusta naftu tay u xiiqtay waxaan filayaa abwaanka dad badan inuu maanta xaddooda kiciyo abwaan waxaanba ka helay ereyada ay heestan qaaciga a leedahay ereyada maadiga iskale wuxuu dhanaa iskale mirahana leh laxankalana luuqdana leh bal labadii kelmadooda ugu dambeeyey ee geela xusuus baa lagu xerageeyaa intana waxaa lagu xusaa bal iigu celi halkaa waa ma ka helaya ma og tahay xasuusta gela lagu xergeeya
وأبتقي حسوسبا إلى لقو حرقية قبلها نحشوبا لقو حلا أمانة كستو حلقات رجي حجوب بقل بلاسمو مرمبو حسوستا مرمبو حسوستا نفتو تي وحيقتي abwaanku aad iyo aad buu u mahadsan yahay heesaha qaaciga maanta uu stuudiyaha Samatif ka sii deynay dadweynaha xiiseeya fanka iyo suugaanta mar walba waxaan ku talagaleynaa inaan u soo gudbino barnaamijyo fanka iyo suugaanta kuwaas oo ay ka daalan karaan website-yadeena oo ah www.somaliamerican.org ama samatvminnesota.org iyagoo maqal iyo muuqaal ayaad kala socon kartaa haddaba facebookgeena wixii taliyo tusaale waad nagu soo gudbin kartaa waana ka qayb qaadan kartaa barnaamijyada ka baxa Sama TV iyagoo maqal iyo muuqaal waxaan kaloo idinku celinayaa facebookgeena waa facebook.com/Sama TV barnaamij soo saara maanta waa injineer Cabdikariim Maxamed Ciise oo cali osna dhinaca barnaamij ka qayb qaatay Maxamed Cali Xuseen oo isna dhinaca farsamada Maxamed Xuseen Timir wariye Sama TV ka tirsan dhamaantay waxaan bal rabaa wali waxa ila jooga abwaanadii abwaan burhaan barbaan ugu abwaan burhaan adigu sida abwaan Argos oo kale kama garaacda wali intaan kula kulmay kulaba kugu maarag adigoo garaacay laakiin ma laga yaabaa mustaqbalka inaad la soo baxdo inaad kabanada garaacdo ma garaaco niyo okay maxay ku kala duwan yihiin abwaanka maadaama laba abwaan tihiin abwaan kabanka garaaca iyo kan garaacin wax ku kala duwan yihiin dan waxa weeye sugaantu waa step by step waaran markii aad wax samaysid wixii wax lagu laalaal rabaa laxayad loo sameeyo oo magaciisi oo muusig loo tumo Argos saddexdii waaye waa qaade laxamayste sameeyo weey saddexdaba waa isku qaatay marka waa kala duwanna ani Argos ma fahamtay marka anigu heesahana waa sameeyaa sidoo kale de gobolkana waa isku dayaa hadda abaartii markay dhacaysay dadka Soomaaliyeed qabsanaysay maadaama dad islaam aan nahay markii wax dhacaan ba abwaanku ku soo dhacaa naasir baa ugu soo dhacday mansada waxay leedahay rabbigiina uume inta aan min naga dhigay wanaag lagu asteeyo aragiyo maqalkiyo urka iyo dareenkiyo maskaxdooda arrimisiyo xuno wada adeegaba kii nagu abuuro aqligiyo aqoontaba kii nagu abuuro dad islaam ahaana shahaado qirayo ayadaha quraankiyo udgoono rasuulkiyo ambiyada dhamaanteed ninka aaminaana rabbo adiga mooyee aynigaada baa jira waligayba maan oran oon iyo kulayliyo abaara dhacayo dhulku waa agagaya abuurkii ma soo baxo xoolihii ilaade inta aan arkayliyo inta aan indhuhu qaban kuwan adiga mooyee cid kaleba ogsooneyn umiyaha dhamaantiis cid sara u eege rabbo noo irmaanee marka waxaan ka hadlayay oo ka bilaabay suugaanta inaan si sharxaan rabaa ilaahay bini'aadanka soo aastay bini'aadanku xayawaanku wuxuu uga duwan yahay waa garasho aqli abaan markaas xatay kugu soo degaan mise markaad soconayso qaabkeeba kugu soo degaan waxay u soo degaan mirahan iyo waxan ileen maskaxdii wax badan bay shaqeynaysaa marka adiga markaas xataa waxyaalo badan maskaxda markaa gelisaa hadana waad qortaa miya maya horteeda suugaantu all of them marka la isku duduba waa arts okay ninka sawirada wax sawira suugaantiisa wuxuu ku gudbiyaa sawir ahaan qolada farshaxanka wax sawirta sawir ahaan bay ku gudbiyaan anigu sawirkii baan afkaaga sawirayaa oo sugaan ahaan baan ku leeyahay marka wax aragtid ba abwaanku wuxuu sawirmaan wixii baad wax ka oranaysaa marka waa kaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay abwaan burhaan waxaan kaloo Argos baan rabaa inaad dib ugu noqdo Argos heesaagu hadda waxay ku salaysan yihiin sidaan arkay jacayl marka heesa ka duwan kuwa jacaylka ma samaysaa mise kuwa jacaylka baad adigu aad ku jirtaa xaaladooda oo aad samaysaa u badan tahay walaahi awlow heesayga runtii jacaylka ayay u badan yihiin laakiin waxaa jira maansooyin ama taariikh ahaan ama dhacdooyinkii dhacay aan wax kaga oranayo dhaadheer iminkaana xasuusanayn hataa gabay baa ka mid ah anigu magac daray dacwadii digaaga bal erayo kooban ma naga siin kartaa digaagaasu 6 qolo ayuu ka dacwoonayaa 6 bini aadanka oo koow ah iyo 5 xayawaanka kale ah hay bal erayo naga sii dacwadani digaag bay ka timi soona daabacay waxay daadaheen baa ka daran danabta duufaane
dirka aadme iyo dugaagay intaba daawo kaga raadin runtii ma wada waa afar eray macnaha hadda qoraalkii ma haysid laakiin waxaan filayaa intaasba inay tahay maaragtay maan si aad u fiican marka lixda qol ay ka dacwoonayaan waxa dadka iyo duunyada ay dhaqdaan wayna dilayaan soo laba ma hadda duusha qayb baanu nahay daribti xoolaade haye saddex soo haysid dir xamaarta oo la doondoonayo daalin baa jira haye afar soo haysid dir guluftana digaag aragtaya way ku duushaayeen waa dagaal